السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني قصة ما أنت أن إذن لقيب سنة يو وقصة رحمرتي الشيخ إبراهيم ابن أدهم هي ننقل يرأه أي رحمرت وقصة رنتي هذه عجبا وعدي نقو كسو حي ننقل يرأه إبراهيم ابن أدهم مرتوحوها نين ونكسن أو عالم أو شيخة أو واعد أو ضدك خير ككبر رجيو صالح وعابد أبو أبا إسحاق maalin maalmaha ka mida nin dhallinyaraabaa u yimi wuxuu yidhi sheekhow dunuub badan baan sameeyaa iyo macaasi badan baan sameeyaa waana iska reebi la'ahay waxaan rabaa inaad ii sheegto wax iga celiya macsiyada ii sheeg wax ilaahay xaggiisa ii hanuuniya ii sheeg wuxuu ku yidhi sheekhu 5 arrimood baan kuu sheegay 5taa arrimood haddaad ka soo baxdo ama aad awoodaba inaad samayso iska samee wixii dembigood rabto ninkii waa yaabay wuxuu yidhi nin sheekahoo macsiyada ii fatwoonaya ii fasaxaya laakiin just shuruud conditions yacni haddaan 5taa shardi la imaado ii banaynaya wax la heli karaa ma ahee bal ii sheeg buuri waaye wuxuu yidhi 5 arrimood baan kuu sheegayaa number 1 iga qabso haddaad rabto buuri ilaahay inaad caasido cuntadiisa ha cunin wuxuu yidhi yaa sheekh oo ilaahay arsaaqda adduunka taalo oo dhan soo isagu ma leh wuxuu ku yidhi haddaba yaa haadaa warkanow afa yuxsinu laka ma kula fiican tahay ma wanaagsan tahay an ta'kula risqa allah inaad ilaahay cuntadiisa cunto wa tacsiih ood haddana caasido ma kula quruxsan tahay adiga wuxuu yidhi maya haati thaaniya bal talabaad ii sheeg inay ka roon tahay wuxuu ku yidhi yaa haadaa wiil yahow haddii aad rabto ilaahay inaad caasido laa tacsiihi fowqa ardihi wa fii bilaadihi dhulkiisa korkiisa ha ku caasinin wuxuu yidhi haadihi acdamu min aluulaa tanaaba ka weyntii hore yaa subxaana allah oo ma dhulkao dhan soo ilaahay ma leh alsamaawaat waalardu wamaa baynahumaa dhul iyo ceriya intuu dhexayso ilaahay iskama leh wuxuu yidhi haddaba ma ilaahay baad cuntadiisa cunaysaa haddana dhulkiisa korkiisaad ku caasinaysaa ma kula fiican tahay sidaasi wuxuu yidhi maya haati thaalitha bal tad saddexaad ii sheeg inay ka roon tahay wuxuu ku yidhi haddaad midda saddexaad aad ilaahay subxaana wa tacaala cuntadiisa cunto ood dhulkiisa korkiisa ku caasinayso haddaba meel uusan ku arkaynin fii makaanin laa yaraahu meel uusan kugu arkaynin aad oo isku qari wuxuu yidhi subxaana allah الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يعلم الأسرار والضمائر ما في الضمائر وحق قلبي وكجروب أوجي هاي حقين أورلون تا إلهي أو حقين آذا وحكور يا هذا أفيحسن حتى بما كلفي عنته إن الإلهي عنتديس عنته وقول كيس كر كيس كعاسده أو ولي أدو كوجي أو تجاهروا أد لا جهريسو أو موقضة هذا إلهي عاسده مكلا قرحسنته يا سبحان الله وحو يري مايا لا هات الرابعة بل تأفراد إشي وحو كيري هدي أربط إن الإلهي عاسده مركا عاد ملك موتك كوي مادو وعاد كتر هذا انتظرني السك أتوب إلى الله وأستغفره إلهي من أتوبت كينيا استغفارنا ألا ويدي سنة ياي وحوغا إسي جانس السك وحو كيري يا سبحان الله السك ماي wuxuu ku yidhi yaa haada oo hadduusan ku sugaynin ma waxaad diyaar u tahay intaad ilaahay cuntadiisa cunto oo dhulkiisa dushiisa ku caasido oo isagoo kuu jeedo indhaha kugu haya aad ilaahay haddaba weliba caasido oo malakumowdkii aada iska reebi karin adigoo caasi inaad ilaahay u tagto oo nafta lagaa qaado miyaad diyaar u tahay wuxuu yidhi maya haati alkhaamisa bal tas shanaad ii sheeg wuxuu ku yidhi markay kuu timaado idaa jaa-adka zabaaniyatu annaar malaa'igta dadka qabta oo naarta ku tuura oo ka shaqeeya naarta markay kuu yimaadaan waxaad ku tidhaahdaa idin raaci maayo la adhabu macakum anigu idin raaci maayo idhabu fa antum mutulaqaa orda iska taga ku dha anigu idin raaci maaye wuxuu yidhi yaa subxaana allah oo miyay iga yeelayaan oo miyaan la hadli karaa wuxuu ku yidhi haddaba sidee haddii intaad ilaahay cuntadiisa cunto ood dhulkiisa dushiisa ku socoto oo isagoo kuu jeeda aada caasinayso oo malakumood saa kaga qaaday sideed u rajaynaysaa naartiisa inaad kaga badbaado wuxuu yidhi wiilkii xasbii xasbii xasbii
intaasaa igu filan yaa sheekh warka kale iga jooji al'aana atuubu ila allahi subxaanahu wa tacaala wa astakfiruh haddaan ilaahay u toobad keenaya istikfaar buuna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi wiilkaas walazima shaykha ibraahim ibnu adham kama uusan tegin wuu laasimay yushaarikuhu fi alcibaadati waalijtihaadi waaldaaca isaga oo la wadaagsanaya mar walba daacada iyo cibaadadana la mushaarakaynaya xataa intay kala geyso almaniya geeridu ilaa ay kala geyso sidaasuu maarata yuu ula joogay ayuha alaxiba su-aalaha sheekhu weydiiye wiilka iyo shuruudda uu ku xidhay kulligan wayna wada xidhan tahay qofka raba inaad caasi ahaatow shantaa shardi ka soo jawaab haddaad rabto inaad ilaahay caasido cuntadiisa u daa haddaad rabto inaad ilaahay caasido dhulkiisa korkiisa ha ku caasinin haddaad rabto inaad alla caasido alla ka dhuumoo meel cidla agal haddaad rabto inaad alla caasido isuga dheh malakumoodka isug dheh haddaad rabto inaad alla caasido malaa'igta naarta dadka u kaxaynaysa iska diid oo ha raacin haddaada intaa samayn karin tub ila allahi al'aana hadda ilaahay u toobadkeen wajazaakum allahu khayr wbaarak allahu fiikum assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu